aniga shakhsiyan waxa weeyaan maaragtay layguma soo amrin muxuu ahay magaalada Kismaayo weerar ama Jubbaland muxuu ahay la dagaalan layguma soo amrin. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxa in kala soo hadlayaa Rais Kamboni Jubbada Hoose. waraysigan si toos ah ayuu idinkaga imaanayaa Jubbada Hoose gaar ahaan garoonka diyaaradaha Rais Kamboni. waxaa gacanteeda bidix fadhiya Colonel Ciraaqi taliyaha guutada 18aad ee militariga Soomaaliya. waxa uu hormuud u yahay ciidanka dawladda federaalka ee ku sugan Rais Kamboni. waraysigan ayaynu halkan kula yeelanaynaa. taliya soo dhawo ugu horreyn waxaad ku soo dhawaataa beejkay gaarka ah ee Faracade. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faracade waan dhowahay boqolkiiba boqol idinkana waxaan idin leeyahay soo dhawaada. waa tahay Colonel Ciraaqi waxaad noqotay sargaalka kaliya ee maalmahan si weyn u haysto aaladda baraha bulshada iyo warbaahinta maadaama ay hormuud u tahay ciidanka dawladda ee Rais Kamboni yimid. ugu horreyn bal si guud xaaladda Rais Kamboni nooga warbixi. runtii aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faracade magaalada Rais Kamboni xaaladeedu way degan tahay alxamdulillaah. runtii ciidamo maxaa wanaagsan oo horey uga sii shaqaynayay baa joogay oo ku soo biiray maxaa xoogga dalka Soomaaliyeed. haddana si buuxda bay maxaa ciidamadu u wada shaqaynayaan. magaalada amnigeeda aad iyo aad buu u sugan yahay wax dhiba kama jiro. waxaa jira muxuu ahaa maarta haddii la wada shaqayn wanaagsan oo haddii la dadka deegaanka iyo waxa ciidamadu ay leeyihiin. marka magaalada Rais Kamboni aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. waa maxay qorshahaad u maateen Rais Kamboni? runtii Rais Kamboni waxay ka mid tahay muxuu haddii la yiraahdo wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada muxuu Kismaayo ee Jubbooyinka. waxaan rabnaa marka anagu ujeedadan u nimid waxaa ka mid ah kow xoogga dalka Soomaaliyeed inuu la wareego goobaha ay admis ka baxday oo ay ka mid tahay Rais Kamboni Buurgaabo Kudhaa iyo Madhawa. waxa weeyaan muxuu ujeedada koobaad taa weeyaan. laba waxaan rabnaa haddii la yiraahdo inaan la muxuu ka hawlgallo ama aan muxuu si buuxda aan muxuu haddii la yiraahdo uga nadiifino muxuu Jubbada Hoose nimankii al-shabaab ahaa ee runtii muddada dheer wadanka haystay. labada ujeedaan halkan u nimid aadna waad u mahadsantahay. waa tahay ciidanka admis shalay iyo daraad kama aanay bixin Rais Kamboni iyo area ku dhowba dadku waxay aaminsan yihiin in qorshe ka baxsan midda in admis booskooda aad buuxisaan aad u joogtaan Rais Kamboni. runtii Faracade anagu haddaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtan Rais Kamboni timid muxuu ahaa ujeedada aanu u nimid waxa weeyaan labada qodob aan ku sheegay. wixii kale ee khaldan ee siyaasad muxuu ku saabsani waxa weeyaan waxa naga noo yaala ma aha. wadanku wuxuu leeyahay dawlado muxuu dawlad iyo waxa weeyaan maamul goboleedyo sidii muxuu loo xalin lahaa siyaasadana anaga muxuu nama qusayso. anaga waxa noqoseeyo waxa weeyaan labada qodob aan ku sheegay. Colonel Ciraaqi madaxda Jubbaland waa ay hadleen sargaalka sida gaar ah u magac dhaween ee ciidanka hogaaminayna waa adiga waxayna aaminsan yihiin in duulaan aad ku tihiin maamul dhisan oo Jubbaland la yiraahdo. waxaad ku jawaabaysaa? runtii waxa weeye maamulka Jubbaland muddada dheer dhisnaa aniga shakhsiyan waxa weeyaan maaragtay layguma soo amrin muxuu ahay magaalada Kismaayo weerar ama Jubbaland muxuu ahay la dagaalan layguma soo amrin. waxaan leeyahay markaa saaxiibaday reer Jubbaland muxuu ahay maaragtay inay nabadda ka qayb qaataan inay haddii la yiraahdo al-shabaab la dagaalamaan in ma garanaysaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo biiraan ciddii ma garanaysaa haddii la yiraahdo muxuu ahay maaragtay doonaysa waa u furan tahay. annaguna runtii ujeedada aan leenahay waxa weeyaan muxuu inaan al-shabaab la dagaalano maanaan halkan u imanin inaan la dagaalano muxuu maamul goboleedka Jubbaland. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu yahay mid ka hufan muxuu haddii la yiraahdo siyaasadda. waa tahay Rais Kamboni xagee xigaad uga dhaqaaqaysaan? runtii Rais Kamboni waxa weeye horta kow ayada in muxuu haddii la yiraahdo maaragtay muxuu nidaamka dawliga laga hirgeliyo oo haddii la yiraahdo dawladda Soomaaliya ay liid garaynayso. waa qodobka labaad in muxuu haddii la yiraahdo nimanka khawaarijta ahaa haddii la la taargad gareeyo oo muxuu haddii la yiraahdo Rais Kamboni base weyn laga dhigo oo haddii la lagula dagaalamo nimanka cadowga ummadda Soomaaliyeed. marka tallaabada noo xigtay waxa weeyaan inaan anagu ku dhaqaaqno degmada Badhaadhe oo runtii muxuu ay hoos timaado muxuu ahay magaalada Rais Kamboni. waxaan u malaynayaa hadda wax ka yar bay noo jirtaa muxuu 60 kilomitir degmada Badhaadhe. waxaan ku wajahanahay haddii la degmada Badhaadhe. waa tahay taliya Ciraaqi waxaad hogaamisaa ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya oo aad guuto ah nin Jubbalandna waa tahay oo deegaan ka soo jeeda hore Jubbaland waa uga soo shaqeysay. bal taariikhda aad Jubbaland ka taqaan iyo waxa ka qaban jirtay iyo ciidanka aad ka tirsaneed iyo guud ahaanba xogahaaga Jubbaland dadka maxaa u sheegi kartaa?
runtii waa saad sheegtay faracadde anugu sargaal soomaaliyeed baan ahay astaanta aan watana waxa weye waa astaan qaran weeye laakiin muxuu ahaa maaragtay waxaan ka soo shaqeeyey gobolka mudug baan ka soo shaqeeyey galguduud baan ka soo shaqeeyey shabeellada dhexaan ka soo shaqeeyey hiiraan baan ka soo shaqeeyey waxay jubbaland uu ka mid tahay muxua geyiga soomaaliya ee ka soo shaqeeyey bay ka mid tahay runtii haddaan laakiin dib ugu yar laabto shaqadii aan ka soo qabtay jubbaland waxay ahayd runtii muxuu ahay shaqo taariikhda muxuu haddii la yidhaahdo aan anigu leeyahay runtii muxuu ahay aad iyo aad iigu dhiirigelinaysa inaan wax qabto runtii waxaa weeye ciidanka kumaandooska danab ee waxaa weeye ururka shanaad ee hadda degan magaalada kismaayo ninkii dhisay ee lagu aasaasay baan ahaa muddo 2 sano baan muxuu ahay ururka ka shaqaynayey runtii waxaa weeye guulo la taaban karana wuu qabtay waa meelaha uu runtii uu ka hawlgeli jirayna runtii waxaan u malaynayaa hadda gaabis baa ku yimid oo wax horay loogu sii daray ma jiro wax gadaal looga noqday mooyaane ummadda reer jubbalandna runtii muxuu dad aan isnaqaano weeyaan oo soomaaliyeed maamulka waa soo wada shaqaynay maraanu saaxiibo ahayn iyo maraanu muxuu haddii la yidhaahdo maaragtay aanaa saaxiibo ahaynba inta waa soo wada shaqaynay haddana waxaan leeyahay muxuu dowladdii soomaaliya anoo matalaya baan muxuu jubbaland joogaa shaqadiina way sii soconaysaa haddii la yidhaahdo shalayna waxaan matalayay soomaaliya maantana waxaa weye soomaaliyaan matalaya aad baan ku mahad celinaya taliya waad mahadsan tahay waxa uu ahaa kornel ciraaqi taliyaha guutada 18aad ee ciidanka militariga Soomaaliya ee kumaandooska waxa uu ku sugan yahay Raas Kamboni tan iyo wareysi caynkani oo kale nabadgelyo